labo dad badan inay barakacaan dadka barakacay waxaa ugu badan ciidamada dawladda oo dagaalka kula jira al-shabaab amniga sugaaya ayaa dadka ugu horeeya oo ku saamooba naqdo arrintaas waxay keentay askarigii inuu ka mashquulo waajibaadkii loo xil saaro oo ka shaqeynaa oo ku mashquulo reerkiisa sida uu meelay lahay marka lagu sii daro arrintaas dadku waxa ay wada leeyihiin oo dawladnimada ah iyo dhulka cidna kuma takrifali karto marka in loo si bareer ah oo aan xishood lahayn in dhulkiina loo iibiyo barakac dhaco markii ugu dambeysana dhiig daato waxaan u malaynaa maalin masha laba maalin ka hor wixii ka dhaca waa arkaysa maalmihii ugu dambeeyana culayskaas waa sii badanaya intaas waxaa sii dheer dhulka dawladda wuxuu isugu jiraa dhul istaraatiiji ah oo amni ahaan loo xadiday inay ciidamo joogaan ama military ha noqdaan ama boolis ama maxaan ku idhaahdaa nabad sugid iyo wuxuu isugu jiraa dhul loogu talagalay adeeg kale sida caafimaadka waxbarashada looma aabayeelo labo dad badan inay barakacaan dadka barakacay waxaa ugu badan ciidamada dawladda oo